toddoba arrimood oo ay nici doonto nafsadaada kadib marka aad qof si dhabaad u jeclaato. waxaa macquul ah toddobadan inaad lahaan, laakiin waan hubaa qaar ka mid ayaad leedahay. tani waa cilmi nafsiga aadanaha, waana dabeecada xaqiiqa ah. qof walibana way soo martaa xaaladan, so waan filaa inaad diyaar tahay. si aad ogaato inaad leedahay qaar ka mid ah, waa inaad la sii socotaa muuqaalkan, kugumana dheerayn doono. midna ogow, qodobkaad lahaataa waa inaad sii xariiqataa. before aan bilaabin, waxaan rajaynayaa inaad ka mid noqon doontid saaxiibadeenna. muuqaalkan likesii wax badan ayay tahay. nambarka 1, ma jeclid qofkaaga inuu ku dhaho macsalaama, bye bye, habeenku ha kuu wacnaado. qof walba oo si dareen leh waxau jeclaadaa ma ogola in sidan lagu dhaho. cagsigeeda waxay jeclaadaan waan seexanaynaa, weliba si niyad leh, habeen wanaagsan oo qurxoon, gacaliyahayga riyo macaan, hurdo caafimaad leh. tani waxay siisaa dareen gooni ah, laakiin ereyadii hore waxay ku dareemaan inay wax iska qaldan yihiin. waxay kula noqonaysaa qofkaaga inuu tegi doono, weliba tegitaan dheer. sawaarinkaas ayaad baqdin ka qabtaa adiga. nambar 2, mashquul ayaa nahay, iyadoo ay tahay midaan mid ugu mararka qaar u muuqan kartaa mid dhab ah. haddana lamaanuhu ka dhexeeya xiriirada dhabta ah ma jeclaadaan arrinkan, so waxay dareemaan waxaad adigu nafsadaada ka dareemi lahayd haddii uu qofkugu dhihi lahaa. adiguna in badan ayaad rabi lahayd inuu kula joogo. mashquul ayaa nahay inta lagu dhihi lahaa, waxaad ka jeceshahay in lagu dhaho wax yaroo keliya isug. tani waa mid rajo leh oo uu qofku ku dareemi karo kalsooni, laakiin mashquul ayaa nahay hadal weyn waaye. nambar 3, online, haddana fariimaha oo aad lagaaga soo daahiya. qofna ma jecla in fariimihiisa la inkiro ama wax jawaab aan la siin, taasoo ku qaadata marmar inay sugaan saacado badan. tilmaan wanaagsan ma bixinayso, soo gacaliyahaaga ama gacalisadaada waa inaad u dirtaa fariimaha si dhaqso ah, waayo ka daahinta fariimaha waxaa macquul ah inay u fikiraan si qaldan oo ayna ku dareemaan wax inay iska qaldan yihiin, ama in qofkaas aaminaba inaad qof kale waqti siinaysid, waxaana macquul ah inaysan jirin arrinkaas. soo u sheeg qofkaas inaad ka maqnayd ama xaaladda aad ku sugnayd waagaas, adigoo dhowraya qalbiga qofkaas. taasi waxay siin kartaa deganaan iyo xasilooni, jabigana way u dejisaa. nambar 4, qabashada moobilka oo laga daahaa. qof markuu si dhab inoo jeclaado, daqiiqad walba uu kala joogo, wuxuu arkaa inay tahay daqiiqadihiisa guusha. haddii gacalisadaada ama gacalyahaaga oo islamarkiiba ku soo wacadna ka qaban weydo, waxay dareemaan kalsooni darro. laga yaabee adiguna inaad iska tahay daacad. waxay dareemaan inay wax iska qaldan yihiin. taasi waxay ku tusinaysaa sida aad muhiim ugu tahay iyaga. hana u malayn inay tahay ka badbadis, laakiin xaqiiq waxay tahay inuu sababayo jacaylka dhabta. run ahaantii jacaylka waa cajiib, isaga ayaa sababi kara inaad ka duwanaato. nambar 5, waxaad dhibsan doontaa in qofkaaga waqti la qaato qof kale. tusaale ahaan, wiil ayaad jacayl u qaaday uma sheegan, wax jacayl ah kama warqabo. maalin ayaad la kulantay isagoo gabdho badani la kaftamaayo. waxa aad isku beddeli doonaa dareenkaaga. waxaad dareemi doontaa masayr. waxaad qaadan doontaa go'aano aysan wanaagsanayn marxaladdaas. bal ka waran adigoo og qofkaasi inuu xiriir idinka dhexeeyo. run ahaantii waan ogahay way yara xanuun badan tahay, laakiin ogow dareenkaaga wuxuu kaaga baahan yahay xakamayn iyo dhowrid. nambar 6, waan soo laabanayaa iyadoo kool lagu wada jiro. waa wax si maalinlaha u dhacaa, mana jeclaanaysid in lamaankaaga uu kaa fogaado. waan soo laabanayaa ama anigaa ku soo qabanayo ma jeclaysatid. laga yaabay inay dhabka tahay, balse adiga nafsad ahaantaada aad dareento inay wax iska qaldan yihiin, oo waxay jeclaystaan waqti walba inay xaggooda ahaato. tani uma wanaagsana xiriirada, waayo qofkaaga awood uma yeelan karo inuu wax badani kuu xiiso adiga. nambar 7, kala maqnaanshaha waqtiga dheer. dhab ahaantii qofkaaga uma ogolid inuu kaa maqnaado wax ka badan maalin. haddee dhacdo qofkaaga inuu kaa maqnaado, se waxaad dareemaysaa inay wax jiraan. wax ammaankaaga ku soo laalaabanaya wuu nacay ama way nacday. iima baahnaa.
maxaan uga fikirayaa, taasoo keenta inaad in badan kasii fikirto uun. Sidaasi ha samayn. Haddaad in badan weydo aadna dareemaysid inaad u xiistay, dib u wac, weydii waxa qaldan. Waxa macquul ah inay dhibaato haysato, adiguna aad wax kale iska dhaadhiciso. Hana qaadan go'aano degdeg ah. Saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo koobayaa. Way jiraan kuwo kale oo intan kasii badan, balse inta ugu muhiimsan ayaa intaas ah. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka mid noqon doontid saaxiibadeena. Muuqaalkan inaad like siiso wax badan ayay noo tahay. Insha Allah inta muuqaalka xiga. Salaam.